cimaaradaas la sheegayo waa masaajidda Ilaahay in la dhiso in maaragta la nadiifiyo in roog loo sameeyo in nalalkan iyo waxaan lagu xiro sida aad arkaysiin masjidkan kaaya waa masjidkan meeshaan idinkaga muuqdo oo naqshadaana laga dhisaa la yiri masjidkan macalinkeena Allah u naxariistay macallin Eber waad aragteen oo masjidku waa yaraaday oo maaragtay waan ugu filnaa la yahay dadku banaankay ku dukado hayaan midda kale hoos u jira oo biyuhu waa soo galayaan inay biyuhu soo galaan oo khatar ugu jira sidaas darteeda jamaacadu ay codsadeen masjidkan in la dhiso oo kor loo qaado oo dabaq laga dhiso si maaragtay dadka oo waasic ugu noqdo oo dadka ugu filnaado marka jamaacada meeshan fadhida iyo ummadda islaamka oo dhanba waxaan codsi u jeedihaynaa inay maaragtay ka soo qayb qaataan oo akoonadan iyo taleefanadan ay maaragtay ku shubaan lacagta oo ay gacmaha furaan laakiin irida Ilaahay awd ma saarna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nafaray inaan diintiisa u gargaarno oo la weyneeyo shacairta Ilaahay waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub masajid wa buyutullah fi buyutin adna Allah an turfa'a fiha ismuhu wa guri Ilaahay oo amray in magaciisa lagu koryeelo wa guryaha Ilaahay ka jecel yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ahabbul biladi ila Allah masajiduha Ilaahay guryaha wuxuu u jecel yahay masaajida nabigana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam sidoo kale wuxuu yiri qofkii dhiso bayt oo masaajid dhiso kamifxas qidaatin hatta buul qooleyda shimbir boolada buulkeedo kale wax la eg meesha kuma dhasho banallahu lahu baytan fil janna ilaahay wuxuu ugu dhisaa guri jannad xadiis kalena midlahu qofka guri adduunyo dhiso oo masjida guri asaga lamid ah ilaahay u dhisaa oo jannada leeyahay gurigan waa guriga nabiyada waa guriga saalixiinta waa guriga awliyada waa guriga dhamaanteen aan awal dariiq oo Ilaahay ugu dhawaanayno oo salaadeeni ah meeshan ku jamciina waa meelayna cid kala hayn